yeeshee markan waxaa maanta magaalada Laascaanood tababar loogu soo xiray ciidamo gaaraya ilaa 150 kuwaasoo la sheegay inay u tababaran yihiin sida militariga. ciidamadan oo loogu yeerayo ciidanka xasilinta magaalada Laascaanood ayaa waxay si gaar ah ula socon doonaan dhaqdhaqaaqa amniga gudaha magaalada, halka ay sidoo kalena la tacaali doonaan arrimaha daroogada gaar ahaan khamriga oo la sheegay inuu dhibaato weyn ku hayo magaaladaasi. haddaba faahfaahin intaasi dheer waxaan gordhaweyd weydiiyey Faysal Jaamac oo ah wariye degan magaaladaasi Laascaanood. kawsare maanta waxaa loogu soo xiray magaalada Laascaanood ciidan loogu talagalay in ay magaalada oo amnigeedu maalmihii u dambeeyay oo aad u kharibnaa ay gacanta ku dhigaan. ciidankaas oo ahaa ciidan muddooyinkii ugu dambeeyey tababar ugu jiray xero ka mid ah xeryaha magaalada Laascaanood duleedkeeda ku yaala. waxaa xafladda xiritaanka halkaasi isugu yimid dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo goobjoog ka ahaa hogaanka sare ee SSC iyo madaxda dhaqanka iyo cuqaalba. waxa kale oo goobta joogay taliyaha howlgelinta ciidanka booliska ee dowladda federaalka Soomaaliya oo goobjoog isaguna halkaasi ka ahaa. waxaa halkaasi ka hadlay hogaamiyaha SSP Cabdulqaadir Axmed Cali oo isagu si aad uga hadlay dhibaatooyinka keena amni darrada iyo waxyaabaha ka dhacaya magaalada Laascaanood oo ay ka mid yihiin qoryaha la sito, khamri magaalada si xawliyo ku soo gelayay maalmihii u dambeysay. waxaana uu sheegay in ciidanka looga baahan yahay in ay laba arrimood ka howlgalaan. saddex arrimood ayuu yidhi. arrinta koowaad, ciidanka in ay qoryaha magaalada ka saaraan wixii hub ah, khaasatan kuwa gaadiidka saaran oo aanay magaalada soo geli karin. inaan lagu arki karin cid hub sidata aan ka ahayn ciidankan iyo ciidanka booliska oo iyaguna joog iyo baraha kaantaroolka amnigooda iyo wixii soo gelaya iyo wixii ka baxaya magaalada. waxaa kaloo uu sheegay in ay jiraan iswaafajin ciidanka booliska iyo ciidankan gaarka ah ee iyagu loogu talagalay la dagaalanka muqaadaraadka iyo waxyaabaha kale oo ay ka qayb qaadan doonaan iswaafajintooda sida uu sheegay generaal Siyaad Maxamuud Cabdiraxmaan iyo saraakiishii hore ee booliska. waxaana uu si aad ah ugu celceliyey in ay iyaga ay mas'uul ka noqon doonaan haddii hub lagu arko magaalada iyo haddii lagu arko maandooriyaasha kala duwanba. Faysalow, ciidankan maxaa lagu xushay, sidee loo soo xulay, tiradooduse waa imisa? sida uu sheegay xogayaha amniga ciidanku waa 150 askari. ciidankan waxa lagu soo xushay waxa ciidan dhalinyaro ah oo aan ahayn kuwa wax balwad ah lahayn, isla markaana dadkii ugu firfircoonaa magaalada laga soo xulay ayaa lagu sheegay. marka ciidankani waxa uun ay iyagu kaga duwan yihiin kuwii hore. haddaan sawir guudkaas iyo ciidankan waxa ay noqonayaan ciidan u tababaran sida militariga ama police military sidoodii u tababaran. ciidankaasi maaha ciidan wejigooda la garanayo. waxa dhacda marar badan in ay askariga falka geysta ama amni darra dhacday ee wax dila in qoyskooda loo qabsado. tani ma dhacayso baa la yidhi. waxaana u xidhnaan doona wejigooda waa xidhnaan doonaa. marka madaxda dhaqanka oo iyaguna goobta ka hadlay waxa ay sheegeen wixii fal ah ee lagula kaco ciidanka ama cid hubaysan ee ka hor timaada ay dilaan inaan cidna loo raaci doonin oo ay sidaas waxa sheegay garaad Jaamac garaad Ismaaciil Ducaale. sidoo kalena madaxda dhaqanka ee halkaas joogay iyaguna way ku waafaqeen oo way arrintaasi waa arrin la isla qaatay ayay u muuqanaysay sida hadalka ka soo baxaysay ka hor. maxay tahay baahida keentay ciidankan iyadoo aan ognahay inay jiraan ciidamo boolis ah? kawsare waa runtaa ciidan boolis ah ayaa jiray oo hore u joogay magaalada iyaguna shaqadooda watay. hase yeeshee waxaa ka culays batay meelaha wadooyinka furan ee laga soo gelaya magaalada iyo amnigii gudaha ayaa labaduba ay ku noqday caqabad. midda kale waxaa caqabad ku noqotay dad hubaysan oo ciidankii booliska hub kala hor imanaya oo iska difaacaya oo iska celinaya oo haddii ay askartiina gacmaha ayaa u laabantay markii ninkii ay wax gaarsiiyaan isagii la xidho oo loo qabsado inuu yahay nin dambiilaha laftigiisii laga dhigo. taasi waxay keentay in la hindiso ciidan ka duwan ciidankan booliska oo aan la garanayn wejigooda oo isku wada diraysa oo isdherer leeg oo isku sartaran oo aan hadhowto loo raaci karin yaa dilay qofkii dambiilaha ahaa ama qofkii dee ciidanka soo weeraray si aan looba odhanin ayaa ciidankan la isku xushay ee sida gaarka ah loo tababaray la go'aansaday in howlaha amniga guud iyo xaaladaha meelaha adkaada iyaga laga howlgeliyo oo khaasatan dadka hubaysan
iyo meelaha maandooriyayaashu ay ku badan yihiin siiba khamriga oo noqday aafada koowaad ee magaalada laascaanood dhibaatada ku haysa waktigan. faysal jaamac ayuu kaasi ahaa oo laascaanood jooga oo iga waramayay ciidamada tababarka loogu soo xiray magaaladaasi oo gaaraya 150 shaqada ay qaban doonaan iyo ciidankaasi waxay yihiin ayuu iga waramayay. markana